habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay guud ahaan Soomaaliya qodobada aan caawidiin hayana wax kamid ah shacabka Puntland oo si weyn uga xanaaqay dilka Lahore oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa kooxda Daesh iyo dowladda Puntland oo ka hadashay qaabkii uu dhintay Lahore sidoo kale waxaan arki doonaa abaabulkii ugu xooganaa ee dagaal oo ka socda koonfurta Soomaaliya kaas oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab qodobadaas oo faahfaahsan daawada inta kula wadaagan wax ka codsanaya in YouTube-ka ku soo biirto subscribe dhahdo muuqaalkana like iyo saarto gambalelkana furto si ay ku soo garaaniin warbixinada maalinlaha ee halkan ku soo gudbino hadii aan ku bilaabo maamulka Puntland oo war rasmi ah ka soo saaray dhimashada ee Lahore ayaa shaaciyay natiijada ka soo baxday baaritaan lagu sameeyay meydka maxbuus Cabdiraxmaan Shirwac Siciid Lahore kaas oo ku dhintay xabsi ciidan oo ku yaala magaalada Boosaaso ayna maamuleysay hay'adda BNBF sida uu sheegay wasiirka warfaafinta maamulka Puntland sidoo kale gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisaaq Cali Siciid Shahdoon oo warbaahinta uu akhriyay natiijada ka soo baxday baaritaanka uu sheegay in isbitaalka Bandar Qaasim ee magaalada Boosaaso ku sameeyay meydka Lahore ayaa shaaciyay in xanuunada uu u geeriyooday maxbuuskaasi lagu ogaaday baaritaanada uu sameeyay isbitaalka Bandar Qaasim ee magaalada Boosaaso gudoomiye Shahdoon oo beeniyay wararka ku saabsan in maxbuus Lahore xabsiga lagu dilay ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay arrinkaasi waxa uu sheegay in hadii dawladdu dilayso ay si toos ah tiirka u geyn lahayd maadaama uu horay dil toogasho ah ugu xukunaa Lahore oo amiir u ahaa shabakad dilalka qorsheysan iyo qaraxyada u qaabilsanayd argagixisada Daesh oo dad badan ku dishay magaalada Boosaaso ayay Puntland dil toogasho ah ku xukuntay 2022 isaga oo maqane ahaa balse waxa uu gacanta dawladda soo galay horaantii bishii Febraayo ee sanadkan 2025 isaga oo ay ciidamada isaga oo isku soo dhiibay aan dhahay ciidamada howlgalka hilaac ka wada buraa calmiskaad sidaasna uu gacanta dawladda ku soo galay laguna xiray xabsi ku yaala magaalada Boosaaso xalayna dhimashadiisa ay dawladda Puntland shaacisay waxayna dawladdu sheegtay inuu dhintay dhiikar iyo xanuuno kale oo tiro badan shacabka Puntland oo siyaabo kala duwan uga hadlay dilka Lahore ayaa sheegay in ninkaasi la dilay kadib markii laga helay xogtii laga rabay ama xogtii badnayd uu hayay oo ku saabsaneyd kooxda Daesh dadka qaarna waxa ay ku doodayaan in ninkan uu hayay xog badan oo ku saabsaneyd aan dhahay dawlado badan oo la shaqeysan jiray kooxda Daesh sidaasna dawladda Puntland looga codsaday ninkan in la khaarijiyo si aysan xogtaas aysan banaanka ugu bixin dad badanna aysan u ogaan waa sida ay ku doodayaan shacabka reer Puntland oo qoraalo badan oo kala gedisan ku soo qoraya baraha bulshada ee kala duwan sida Facebook Twitter iyo sidoo kale baraha bulshada oo ay bulshada ku kulanto madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku hoyanaya jiidaha hore ee dagaalka ka dhanka ah argagixisada ayaa caawa kulan la qaatay bulshada degmada Moqokori hogaanka Hirshabeelle iyo saraakiisha ciidanka hormuudka u ah howlgalka xoreynta dalka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa ka xog wareystay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle iyo hogaanka ciidamada jiidaha hore guulaha la gaaray caqabadaha jira iyaga oo soo bandhigay sida ay ciidamada u dhiirigelinayso in madaxweynihii qaranka uu kula sugan yahay furimaha dagaalka si dhowna ula socdo guulaha ay gaarayaan baahiyahooda iyo geesinimada ay muujinayaan ciidamada dalka Soomaaliya oo dagaal culus kula jira kooxaha Daesh oo isku dayaya markan inay la wareegaan inta badan koonfurta Soomaaliya abaabulka madaxweynaha ayaa ku soo aadaya xilli la filayo in dhawaan uu bilaabmado dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab dawladda Soomaaliya ayaana qorsheynaysa in ay qaado dagaal kii ugu adkaa oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab iyada oo diyaarado caalami ah keentay Turkiguna ugu deeqay diyaarado caalami ah oo ka qayb qaadanaya dagaalka ka socda koonfurta Soomaaliya dhanka kale dawladda Soomaaliya ayaa duqeymo culus geysatay meelahii ugu badnaa oo ay kooxda lagu toomayay dhanka kale dadka deegaanka iyo ciidamada loo yaqaan macawisleyda ayaa kaalin weyn ka qaadanaya dagaalka lagula jiro kooxda shabaab kaas oo la rajaynayo ama la filayo in maalmaha soo socdo dagaal xoogan lagu qaado kooxda shabaab iyadoo sidoo kale duqeymo dhanka cirka ah ay dawladda federaalka Soomaaliya ay ka wado deegaanada ay horay u haysatay
ee kooxda shabaab. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkeena caawa. haddii aad halkan la soo gaartay waxaan mar kale kaa codsanayaa inaad youtube-ka igu soo birto, subscribe dhahdo, muuqaalkana like saarto. like-tu waxay naga caawinaysaa in muuqaalku uu meel fog noo gaaro. waa mahadsantiin.